kulanti wanaagsan saxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan ku talagalnay waa barnaamijkeeni habeenimo axada isniin soo galayso taariikhduna waa 10 May haddaba maxaa ka soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe wararkii ugu waaweynaa ee ay warbaahintu qoreen ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahineynaa waxaynu ku bilaabaynaa Masar iyo Iiraan dhawaan waxaan idiin soo gudbiyay war ku saabsan in Masar ay ciidan u keentay Imaaraadka ciidan kaliya ma ahane diyaarado dagaalna inay soo raacayso oo lagu eedeynayay ninkii Siisi ahaa inuu xoogaa xisaaba kaga qaatay ninka haysta muxuu ahaa Imaaraadka Mohammed bin Zayed habayiri ana ciidan iyo diyaarado iyo wax ku keenay Iiraan meelan ka saaray ninkan marka xoogaagiisu duubtay ciidankii uu keenay saldhiga la dejiyay diyaaradoodii la soo degeen barkan hadduu dagaal ka bilowdo yiri wacdara ka dhacay gantaalahaana difaaca cirka la yiraahdo waa kaas Iiraan marka waxay su'aalo weydiisay nimankii Masaarida ahaa waxa maxaa u soo bareerteen inaad nala dirirtaan macnaha Masaray ma waxaad u soo qalab qaadatay inaad nala dagaashid maxaa dhacay waay ciidankan aad keentay Imaaraadka muxuu Masar aflabadiya qaylis war ciidan dagaal ma aha war maxay yihiin waa niman tababarayaal iyo xoogaa yaroo ciidana diyaaradahanu maxay yihiin afar diyaaradood leeyahay kuwa tababarka waay waxa shaqo kuleena anaga dagaal haduu qarxo shaqo ma kulihin waa ninkan odaga xisaabta ka qaadanayna amal nimankii barka cabaadkoodii baxay Masaarida waa la soo qab laba cadeeya leeyahay bas ma inaan nala dagaashaana meesha u imaateen cabaadkooda baxay nimankii barka ninkii lacag ka qaateen nimankaan inay la dagaalaan barraba nimankaan waa la yaqaan joogta culus la yiraahdaa Iiraan niman sahlan ma nimankii barnaamijkan kii ka horeeyay labaad aan ku soo qaatay way lahaa dagaalkii labaad ee adduunka kadib cid kaliya oo ka adkaatay Mareykanka annaga way nimankii dhahay way nimankaan meelay isla joogaan iyo Masartaan gabgabta leh urbeeshaana macalinka weyn la cunay barnaamijkan kii ka horeeyay Faransiiska iyo Ingiriiska maraakiibtoodii loo hanjabayaa Yuruba meel la saaray iyo Masar marka maxaa taadi markaas Masar qaylis Masar cabaadkeeda hadalkeeda waxa ka muuqda waraanahu dagaalkiina ma u imaanay xisaab kala u imaanay meeshada ku jirta haddaba markaan idin tuso wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa goordhow qoray warbixin uu leeyahay ciidamada Masaaridu waxay u sheegeen Iiraan in ciidanka Masar ee jooga Imaaraadku ay yihiin ciidan yar oo cilaaqo aan la lahayn ama wax xiriir aan la lahayn howlgallo dagaal iyo waxaas afar diyaaradood wataan waxa waaye ciidan sagiira waaye waa yar yihiin waa farto xabo wax dagaal wax gali kara bale nin oday meeshaan oo cabsida wareerisay madax martay aan waxaan rabnaa in xoogaa kaga duubano camal nimayow annagu meedii soconna dhexe walla qaybi wakii Iiraanita umadeena ma Iiraan caadi ma liwakii Masaarida cabaadkoodii baxay cabaadkoodii marka qodobkaas halkaas kaga gudbaynaa qodobka labaad ee barnaamijka Ayatullaahiga Iiraan Mujtaba Khamenei ayaa amara cusub wuxuu siiyay lagu leeyahay taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee xarunta Khaatimul Anbiyaa marka muxuu leeyahay awoodaada waa haysataa ilaalada waxa rabto nagta ka saar amniga wadanka iyo wixii soo hujuuma dhagaha ka garaac ninkii isaguna warbixinu si wuxuu yiri waa isku filanna nimankii midda aan ku dhignay ilaa hadda la jahwareersan hadday haddana isa soo waalaan mar kale ayaanu garaaci doonaa haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay sheekada ku saabsan saacadihii la soo dhaafay jirada la yiraahdo Al-Qudus waxay leedahay
aayatullaahi khamenei ayaa siiyey macluumaad ama awaamiir cusub taliyaha xarunta khaatimul anbiyaa ayuu siiyey wakaaladda wararka ee iiraan oo la yidhaahdo faris oo warkan laga soo xigtay ayaa sheegtay maanta oo axada in ninka la yidhaahdo cali cabdallah oo ah taliyaha ninka hogaamiya kooxda hubaysan ee iiraaniyiinta ama ciidamada hubaysan ee iiraan ee maqarul khaatimul anbiyaa ayaa la sheegay inuu la kulmay hogaamiyaha sare ee ruuxiga iiraan aayatullaahi mujtaba khamenei waxaana la soo siiyey awaamiir iyo amaro cusub howlgallada militari ku saabsan laakiin wakaaladda wararka ee faris xilliga kulankoodu uu dhacay iyo maysan ka hadlin maanta laakiin warkaas ka hadashay oo ay soo saartay waayahay macluumaadkaas marka iyaguna halkaasaa kaga gudbaynaa wararka kale ee soo kordhay iyana waxaa ka mid ah abaanduulaha ciidanka israa'iil ayaa isaguna wuxuu yidhi wax xabad joojina oo ka jira dhanka xisbullah iyo annaga dagaalkeena maaragtay ma jiro mana dhici karto xabad joojin meesha maba ka jirayso ilaa danahayna aan gaarno danahooda muxuu yahay inay hubka ka dhigaan xisbullah hubkeeda ka dhigisteeda marka masaalan yahay masaalana waa marka laisku baaba'aya marka wuxuu leeyahay meeshaas annagu hal midaan dagaalkeeda ku joojin karnaa inaan hubka ka dhigno xisbullah yoolkeenu waa kaas inaan gaarno haddaba markaan idin tuso warka uu dhowaan soo saaray abaanduulaha ciidanka israa'iil ayaa sheegay inaysan jirin wax xabad joojina oo ka jirta jabhadda ama dhanka waqooyiga israa'iil ee lubnaan haddaba waxa uu sheegay hadafkooda ugu weyn inuu yahay ilaa ay hubka ka dhigaan xisbullah oo markaa aanu joojinno yidhi khataraha sawaariiqda iyo droniska iyo dhanka nooga imaanayo ilaa inta meeshaas ay wax ka soo dhacayaan khatara ku jirnaa wax xabad joojina ma geli karnuu leeyahy waaye qodobka kale oo barnaamijka aynu kusoo qaadanayna wuxuu yahay ninkii jaagaxiirka ahaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa dastuurkiisa wax ka bedelaaliyay ninkan de waa iska kaligii talis dastuurku wax ka bedelay iyo waxaas waa dadka loo sheegaa maahane habeenkii wuxuu rabo iska qortaa ninkan nin oo dastuurka iyo waxa kan iyo isagaa iska samaysta laakiin adduunyada wax la ogeysiinaya dastuurkiia wax laga bedelaaliyay haddii dastuurka nuclearka aan haysano markii hore wuxuu ahaa dalka haddii lasoo weeraro oo nuclear lagu soo weeraro in nuclear lagu difaaco waxaasaa markii hore ku qornaan jiray jabtarkaas dhan marka waa la bedelay waxaa markii uu arkay aayatullaahi ibaalkan aayatullaahigii iiraan oo gaadmo lagu dilay iyo wixii markuu arkay jaagaxiirka waa shikiyey wuxuu is dhahay gaadmaa lagugu dili karaade in lagu gaado in lagu dilo waa suuragal sababtoo ah aayatullaahigaba haddii gaadma lagu dilay cid kastaa la gaadi karaa marka meeshan si aan lagu gaadin waa inaad dastuurka ku qortaa qodob muhiim ah muxuu ku qortay mataqaan haddii la dhibaateeyo hoggaanka iyo madaxda waddanka u dhib soo gaaro ama macnaha weerar gaadma iyo lagu soo qaado dil ama ha ka badbaadeen ama in kale nuclearay ku jawaabay kuuriyada waqooyi yaa liigu soo degdegi waayo cunuga jaagaxiirka cunug baaya ka dhacda waayo xataa haddii isku day dil laygu dayo aan ka badbaado nucleara ku jawaaba u leeyahay amerikaan marka dhagaha u taagan iyo ciddii ninkaan wax ka rabtay marka hore inay gaadno ku disha iyo waxaas marka ninkaan dastuurkaa ku qoruba leeyahay waddanka haddaba markaan idintusoo wargeyska la yidhaahdo sharqul awsad ayaa qoray warbixintan wuxuu leeyahay kuuriyada waqooyi waxay wax ka badashay dastuurkeeda taasoo markaa khusaysa dhinaca nuclearka haddii la isku dayo in la khaarijiyo kim oo ah hogaamiyahooda haddii kim la isku dayo waa jaagaxiirka kim jong un a leedaha haddii la isku dayo waa nucleara ku jawaaba u dhahay marka sheekadaasu marka waa caadi maaha odaga marka ninkaa jaagaxiirka nin caadiya nin saalan maaha haddaba war cusub oo uu Trump soo saaray ayaan hadda gacanta ku hayaa oo soo dhacay Trump wuxuu sheegay cid kasta oo u dhawaata kula u fiirsada
cid kasta oo u dhowaata meesha lagu xabaalay ama meelaha lagu xabaalay uraniumka Iran oo godadka la geliyay waa weerari doonaa marka cid kasta oo u dhowaata wuxuu aaminsan yahay uraniumku inay godad hoostii ugu jiraan marka cid kasta oo u dhowaata waa weerari doonaa uu ku leeyahay halkaasaan weerari doonaa warar marka soo baxay horudhaca iyaguna waxay sheegayaan Iran jawaabta ay u dirtay Mareykanka inkastoo Mareykanku uusan wax jawaaba ka soo saarin laakiin warar la soo dusiyay waxay sheegayaan Iran inaysan ku darin ba nuclearka iyo waxaan laga wada hadlayo maba ku darin sheekadaas ayaduna soo baxday inkastoo Mareykanku ay faahfaahin doonaan marka waa arkaynaa wixii kale oo warar ay soo kordha qaybihii ugu dambeeyay waxbaaraadkii soo dhacayna kuwaas ay ahaayeen barnaamijkaygii saddexaad waa naga intaa fadlan waxaan idin xusuusinayaa dadka aan daawan barnaamijyadeedii kale koobaad iyo labaad warbixino aad u xiiso badan ayaa ku jiray maanta iyaguna waa soo daawan kartaan inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamij kale haddii alla idmo